واستفاعية ضد إذا ميسك صوص صارنية قفنا لما جاء فيني halkaas ay taala waa midda koobaad ee mukhtaar adiga laascaanood martikaaga ma ahi buu hodla ka timid gaalka ayaan ka imi laascaanoodna waa noo dhaxaysa konton wiil hadday kaaga dhimatay 100 baa iga dhimatay 10 milyan oo dollar hadday ku baxday 8 milyan baan bixiyay dhalasho hadday noqoto waa u simanna ficilna waa u simanna siyaasadna waa u simanna hal daqiiqo gadaal kaaga digi mahay martina adiga kaaga ma taasi waa mid labaad maxay tahay anigu waxaan ahay ninka laascaanood wax ku leh dadka harti ee magaalada laascaanood iska leh baan kamid ah waxaan kamid ahay dadka harti ee aaminsan laascaanood inay kamisi ahaato Puntland oo midnimada maamul ee harti lagu ilaaliyo baan kamid ah ma qarsanayo shirweynaha la qaban qaabinayo waa ku casunaho waa tagayay waa ka sheegi doona hadii codka la iga helo oo harti weyne isku raaco in laascaanood laga saaro maamulka Puntland oo maamul gaar ah laga dhigo 80% haday hesho waa ku khasbana dadkaygu meeshu aaday in raaco waana aqoonsanaya inta ka horeysa Soomaaliha waa magaaladeedii siyaasiyana waxay iiga tirsan tahay hadeer oo dastuurkayga igu qoran tahay Puntland 17 xildhibaan baa ii jooga golo wasiirre ii leedahay agaasimayaal bay ii leedahay taliyaal ciidan bay ii leedahay saakana madaxweyne ku-xigeenkaygii baa booqday waxaan qarsanaya maaha qofnana kuma jaa'ifeynayo ninnana marti uga maahi dhulbahanta igama xiga laascaanood jaamac siyaad iyo ugaaryahan igama xigaan laascaanood bahrar same igama xigto reer hagar iyo faarax garaad kale igama xigaan ninnana marti uga maahi laascaanood anaa iska leh anaa ku dhintay أنا دفاعي أنا متله أنا أقول أوله سيدا أنا قال كعية كاجي حجن قرونا كاجي حجي هل هبين بقى يجي تاكري أقول هبين كسعيد هرتيا وحكي لا يجي حكي تبجت قرمت كيلو سميني أنا أديك هاجي صهر مربوه والله أنا كصهر مري تاسوا مد إذا سد حد محيط وحيته من لماذا محن أقول لجناه لا سعانو ديني بطلان كميدا هاتو وحن أقول لجناه وحيته صدح شيء ومدة كوبادي مقالة أنا مست يقدر ضدي ليس محل نقص ما عبساق واقع سود حق لك شبكين وانك ضدي إيدا يها ما حد ما يستودع إلا يا بعد كنيسة بركة دتك ما أكيد القصر بعد كوريجسا ما يس عبساق يس كسر عجيب كسر ضدي هاللي يدايو أنا قال نقول بوادق السنية حدي حتى الله يعاي وادق السنية نمنا كم حد قد بيو لكن ضدي هاللي يدايو صدح الريموت باناني وجود جانها إني laascaanood ka sii mid ahaato Puntland maxay yihiin saddexdaas arrimood kow midnimada dhuleed iyo dadeed ee harti baan u arkaa inay dantu ku jirto taas anoo ka duulaya waxaan rabaa inay midnimadaasi jirto dhul iyo dad labo dastuurka federaalka Soomaaliya ma buuxin karto sool dastuurka laba gobol baa laga rabaa ugu hooseen labadii gobolna ma dhama waxay u baahan tahay hawl kale saddex meesha la yiraahdo sool waxaa la dagaalamaya niman la yiraahdo Raashi Isxaaq ma harayaan ma deynayaan kama nasanayaan kama daalayaan saaka ugu dambeysay Mareykanka Ingiriiska iyo reer Yurub oo dhan waxay la hadleen Muuse Biix dagaal dambe ma qaadi kartid baaliye mana qaami kartid waana diiday si cad buu safaaradihii uga diiday Ethiopia iyo Djibouti bay u sii mareen inay cadaadis saaraan wax ka hirgalayna ma jiraan wali taas anigoo og sool waxay u baahan tahay marka kaligeedna dastuurkii ma buuxin karto nimankaanana ma deynayaan mar walbana waxaa jiri doona qolo la adeegsan doono tafaraaruqa samayn doonto ayadoo taa laga badbaadinayo inaan cidla lagu sii deyn siyaasiyanna la hayo difaac ahaanna la hayo dhaqaale ahaanna la hayo haddii ay jiraan marka khaladaad dhacay ama dhacay hore u dhacay ama hadda dhici doona in la saxo wixii khaladaada
laakiin ay sool ahaato Puntland difaac iyo maamul iyo siyaasad intaba aragtidaasaan anigu ka duulaya waxaygu waa aragti siyaasadeed ee ma ahan aragti qabiil nacayb ku dhisan sababta dhulbahante anaa ah xiif calitaan anigu ilma adeer baana maalintii ku dhimanayay nin ku dhintay ma jiro saabuuni maalintii layga qabsanayay ninkii iga qabsanayay nin jaamac siyaadu ahaa anoo asaga ku difaacayo ku weerarayo tukaraq difaacayo niman yahow idinkoon qaylin caadifad mukhtaaroo bahasha ka dhigin waxaa la rabaa aragti macquula oo degan inaan ku doodno sideeda dagaal iyo qayla meesha ma taallay dood baa taalla haddaad dooddaa layga helo waa gar qaadanayaan waxaa leeyahay tolkayga dhinac buu u batay waana raacaya laakiin ma hadli kartid ma taaban kartid ma soo fiirin kartid ma samayn kartid xaasha kulila nina nin ma amro qofna qof geed uguma xirna adduun ilbaxo dimuqraadiyaan joogna qof walbaba aragti buu leeyahay laakiin waa in la isdhegaysto la isku tixgeliyaa waa ka bax waayahay jibriilow horta anaa kuu yeedhay meeshan waxaa ku jira 200 qof baa ku jira dad ku dhow tweet aad soo qortay baa arrintan keentay hadda ka hora Siciid Deni baa wuxuu yiri waxaan rajaynayaa reer Sool inay ku soo biiraan Puntland arrintaasna waxay keentay markaa waliba la gooja cadan loo fadhiyay arrintaana anigu waan ka hadlay anoo ku hadlaya afka jamaahiirta ku hadlaya KCC anigu cid kale uma hadlo runtii arrinta waxay u kalifay markaan arkay guuxa meesha ka baxaya baan simadaha ama ku haboontay Mukhtaaro inaad markan ka hadashid sababtoo Soomaalidu waxay ku maamahdaa waan baahanahay baktiga looma cuno oo macnaheedu uu yahay hal isaaq baa ii soo fadhiya meesha la yahay gooja cadde kama yeelay Siciid Deni waxaan ka diiday waxa weeye qadiyada ciyaalkayga u socdaan wax baan ogaanay xaqiiqadu waxay tahay ayuu ka faa'iideysanaya arrimahan waxa weeye meesha ka socdo quruxda badan ayaa waxa soo qortay tweetka maanta soo qorto ahaa madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo tagay Laascaanood oo 15 sano ka maqan gacanta Puntland oo haddana ku soo noqotay wax u dhigan Ahmed Karash waxaan ogahay inuu naf tacab iyo maalba ku bixiyay Laascaanood iyo gobolka Sool Ahmed Karash hadda ogtahay hadda ka hor buu jabhaday difaaca gobolka Sool iyo qadiyada ICC hadda ka hor baa dantu waxay baday laba daran mid dooro Ahmed Karash wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee khaatimo buu ahaa arrin inaad ogtahay ma la socoto markii maamuladii markaa jiray ee Puntland iyo Somaliland oo ay kala hogaaminayeen laba nin oo isku cadaaya isugu tageen baa wuxuu door biday laba daran mid dooro garow ku soo noqday maanta Ahmed Karash markuu imaanayo Laascaanood ma imaanayo isagoo nin waxa weeye iimi magaalo Puntland ka tirsan ee wuxuu imaanayaa isagoo wuxuu ku hamiyay waligii cimriga ilaahay ku simay buu yimi Ahmed Karash inta jeero aanu shirka wada qayb kala wada hadalay ma taqaanid jibriil qow saaxiib fikirkaagu xor baa u tahay Laascaanood cidi kama xigto sadan gal iga xigin laakiin markay timaado siyaasad way kala duwan tahay waxaad ku riyood fikirkaagu fikir ma dhaysa way arrin baan ku sheegayaa waxaad tiri hadeer ma buuxin Laascaanood adoo ku soo koobaya dhulbahanta inuu dego kaliya Laascaanood shuruudaha federaalka waxaad sidoo kale aqoonsan tahay wax loo yaqaano galmudug oo adigu aad aqoonsan tahay oo ugu yeedhay galmudug ka dhul yar ka dad yar SSC khaatimo وكوجه هنو مختار هنا هوس باينو تايم ما نسو واحد امسنت هي ما يسوق بليز مايك listen to me هوستك نياهو مايك هنو قبسنا ماشي انا فرناي لكن جبريل قوبو adiga oo kamid ahaa hooyada federaalka oo Puntland oo ku qoray dastuurka shirki in bagaati ku qoray ee Cabdullaahi Yuusuf ku soo baxayay adiga oo ku qoray laba gobol iyo ka badan ma noqon karta maamul goboleed ayaa indhahaaga shana waxa lagu marsiiyay oo xabad lagu marsiiyay qayb kamid ah gaalkacyo iyo galgaduud baa lagu marsiiyay markaas aad aqbashay maanta waxa la imaanaysaa 2023 ma buuxin adiga oo waliba jibriil qoob la taliyo oo Siciid Deni baa waxa halkan la timi ma sool ma buuxin karto sool SSC baa leeyahay dhigaha furo saaxiib dhigaha furo you are from galkacyo waa taqaana bal waan ku socday ma geey bal waxaad isma baraysaa shuruudaha aad ku keentay ma buuxin SSC shuruudaha federaalka hadda